دكتور عبد علمي أبسي هو دكتور كنت تخصصي قلين كاين ده يا وحو شاعيي إنه بلا بيو قلين بلا لعجة وشاعي إنه كقليو مناسبة مولد كأوجد صدق هذا تلفزيون كبرشة تي في وكوب عقدي دكتور كهذا فارح براري مقالة بورما دكتور عبد علمي أبسي أي وحو ناقة ورماي تطبيقات إنه تسوي جيني وجيسيس يعني تسوي جيني يسبق له حيزة يمهر الله موت يمهر مهمك waxaan markaasi bishan barakeysan mawlid waxaan ugu talagalnay 3 qof oo Soomaali oo qalina indhaha loo jeexayo oo la haglaana marka dadweynaha waxaan jecelahay inay ka faa'iideystaan waqtiga inta bishan nooga hadhay bishan barakeysan nooga hadhay in 3 qof ay ugu horeeya noqon doonaan dad la haglaana oo bilaash lagu sameyn doono maadaama dadkeenu moogtahay waqtigu aad u adag yahay Soomaalkaas aan ugu deeqaynaa dadweynaha waxaan doonaynaa in arrinta gaarsiisaan wajiraan dad isu soo dawaangeliyay waqtiga qabanay qoysaskan qaybinaynay maalmaha ilaa sidaasadii waxaan gaarsiinay ilaa wajaale oo maalmaha qaarkood aan tago wajaale waxaan ugu soo deeqay ilaa 8 qof ka imanaya oo maalinta sidaasadii baan tagay 8 qof ka imanaya goreyaal waan hayday qoysaskan gaarsiiyay 3 ugu horeeyay halkan noo fadhiya dilana موت ورجينا يقولون يمادان يبوروا مبا مركوا واحد موت هاي ميراح أقارك نودودن سفر لوج سمينا أيو جانس كانوا حجالله يتفايدستان كاميرا برشة تي في ولا دحمرنا يدتي قلين كبلا العقد لو سميني أي وحي كورمين درن كودا waxaan maanta ilaahay ugu mahad qabnaa dhaqaatiirta gacanta naqabatay ee bilaash wax noogu qabanaysa in ilaahay iyagana tawagal fiican u ka siiyo anaguna faa'iido fiican naga sameeyo gabadhana mid hore loo qalay yaa loo qalay hore kolkii damban iyo hawshii ma ku taagno oo wareegtay markaad kalawaya ku noolay ka hore inta ka dambaysay ilaa dhowr sanadood oo dambe ee dhibtaas ku timid iyada ilaahay anaga jisaaysiin anaga naga siiyo faa'iido وعيشة تاني ولا جاحد سديت سنة قلت تانينا قلبي وددم جلاهينو لبيه 7 سنة قلت يدمته si kastaba arrintu ahaatee maaha markii ugu horeysay ee Dr. Cabdi Cilmi Obsiye uu qalin bilaa lacag u sameeyo dadka tabaalaysan ee ku nool guud ahaanba gobolada degmooyinka tuulooyinka hoos yimaada dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland waa Maxamed Xasan Ismaaciil Beere Bulsha TV magaalada Boorama.